Introduction to Linux. waxaan maanta halkan ku bilaabaynaa cashar cusub oo ku saabsan Linux. casharka waxaan la socodsiin doonaa anigu Axmed Ibrahim Axmed Kayd. wuxuu doon doonaa casharkan mid taxana ah. waxaadna kala socon doontaan website-kayga sahalsoftware.com ama page-kan Facebook ku leenahay Sahal Software. waxaad si gaar ah ila soo xiriiri kartaan email-kaygan ahmedsaid01@gmail.com ama Facebook-kayga Ahmed Kayd Japan. maanta topics-ka aynu ka hadli doonaa waxay noqon doonaan waa maxay Linux yaa sameeyay Linux-ka distributionada ugu doorka roon aynu ka hadli doonaa halkan ka hadli doonaa ama qaybaha ugu doorka roon ee Linux ay leedahay. waxaanu sidoo kale ka hadli doonaa waa maxay Ubuntu operating system waxa ay tahay. waxaanu sidoo kale focus ka saari doonaa GNU iyo GPL. Unix ama GNU waa maxay farqiga u dhaxeeya iyadana waynu eegi doonaa. advantages iyo disadvantages-ka ama khasaaraha iyo faa'iidada ay leedahay Linux. waa maxay Linux marka koowaad? Linux waxa weeye Unix clone. waa farac ka mid ah Unix. waxay ku shaqeyn kartaa 32-bit hardware iyo 64-bit hardware labadaba way ku shaqeynaysaa. waa free. qof kastana wuu download gareysan karaa wuuna ku duuban karaa computerkiisa. can be addressed up 64 GB of RAM. waxay ku shaqeyn kartaa ama ay capable u tahay 64 GB of RAM. 64 GB oo RAM ah. waa RAM aad u badan runtii. awood bay u leedahay ama capable bay u leedahay Linux inay ku shaqeyso 64 GB oo RAM ah. taariikhdaynu ka bixino kooban Linux meesha ay ka timid. Linux waxay la bilaabantay with Unix. waayo Unix ayaa waxa la soo bilaabay 70s-kii ama 1960s-kii bay Unix soo bilaabantay. marka Unix-ka waxa sameeyay nimanka magacan leh Ken Thompson iyo kuwan kale ayaa sameeyay Unix. halkan ayay ku sameeyeen Bell Labs Research la yiraahdo. 1970s-kii markay raggan kan sameeyeen 1991-dii ninka loo yaqaano Linus Torvalds wuxuu isku dayay ninkaas inuu implement gareeyo Unix oo free ah. marka ninkani Linus saad u jeedaan magaciisa uga jeedaan waa ninkii Linux aasaasay. waa ninkii Linux soo aasaasay wuxuuna isku dayay inuu sameeyo bal Unix oo free ah sababtoo ah Unix saad ogtiin ba waa trademark. waa lacag ama free lagu heli karo. 1993-dii waxaa jiray users 12,000 oo isticmaalaya Linux. waa 93-dii buu aasaasay oo soo bilaabay development-geedu. 93-dii 12,000 oo user ayay haysatay oo isticmaalaya. maantana waxay noqotayba mid more stable ka ah marka loo eego Unix. Linux ayaa saan noqotay. most popular Linux distributions baynu ka eegi doonaa iyadana. shantan ayaa ugu caansan oo aad loo isticmaalaa maanta. waxaa kow ka ah Ubuntu oo aad casharkeenu ku saabsanaan doono inagu aynu ku shaqeyn doono ka hadli doono. Linux Mint, Linux Fedora, Debian iyo Arch. shantan ayaa ah most popular. marka inagu waxaanu casharkeenu ku eegi doonaa tutorial-keena soo socda insha Allah. Ubuntu ayaanu soo qaadan doonaa inagu. waa maxay Ubuntu? Ubuntu waa Debian based Linux operating system. waa Debian based. Debian-kina waa anaga ku sharaxayna. Debian waxa weeye Unix like operating system. waa sida magaceedu ka muuqato waa operating system u soo dhow Unix-ka. aad bay similar ugu tahay. aad bay ugu egtahay. waxayna ku shaqeysaa under GNU. GNU waxay u taagan tahay GNUs not Unix. GNUs kuma aha Unix. waana general public license. Debian-kan meesha ay ka tahay Unix-ku ayna ka ahayn free ay lacagta ka tahay. Debian waa free. Debian-kuna waxay u eg tahay oo sida Linux-ka ay u shaqeysaa sida Unix-ka ay u shaqeysaa afwan. waxayna ku shaqeysaa under GNU. kelmadda GNU haddaynu imika Google aan ka eegno halkan
haddaynu imika google ku qorno new waxa ay tahay new waxa ay tahay oo aynu ku dhufano image ahaan notus waa xayawaankan ayaa la yahaa new marka magaca waxay ka soo qaateen horta iyagu xayawaankan ay ka soo qaateen qoladan develop garaynaysa new marka qolada new waxay soo gaabiyeen oo yiraahdeen news not unix bi haddana u taagan tahay oo GNU not unix news not unix unix sidooda ay shaqeysaa waana general public license ama GPL marka GPL-shan waa free cid walba way isticmaali kartaa online kaad kala degaysaa marka that's why bay ubuntu free u noqotay under new mar hadday tahay under new wuxuu haduu yahayba linux walba oo under new ya waa free waana general public license oo qof walba uu isticmaali karaa waxaana duubay rag loo yaqaano Debian project individualist loo yaqaano Debian project waa Debian ka waxaan sharaxaynaa imika Debian ku waxay aad similar u tahay nini Unix-ka laakiin waxay kaga duwan tahay waa free totally waa free Debian ka kaliya ma aha kuwa kalena way hoos tagaan operating system basis kalena way hoos tagaan newda wax kasta hoos tagaana waxay dhahan waa free badanka marka Unix like waa similar to Unix system Unix like hadaynu yara eegno iyadana Unix like waxay la mid tahay Unix-ka laakiin waxay kaga duwan tahay ma aha version kamid ah Unix oo sharci ah it's not being certified to any version of single Unix specification marka sharci ma aha oo version kamid ah ma aha oo sharci ah Unix-ka laakiin sida Unix-ka ayaa u shaqeysaa Ubuntu-ga last version ugu dambeeyay marka soo baxay waxa weeye 16.04 waxaana la soo daayay 21 April 2016 Ubuntu waxay ku shaqeysaa run is on waxay ku shaqeysaa Unity as default user interface Unity-gana marka waxa weeye environment-ga ama GUI graphical user interface-ka ay ku shaqeyso Ubuntu-ga waxa la yiraahdaa Unity kuwa kalena way jiraan KDE baa jira marka iyadu tan waxay isticmaashaa Unity طبعا way kala duwan yihiin oo minti imka wax kala isticmaashaa tan Unity bay isticmaalaysaa tan imka marka inagu tan isticmaali doonaa environment-ga ku shaqeyn doonaa waa Unity advantages-ka ay Linux ku leedahay Linux waa free hadda ee jeer ardayda college-yada aad bay u isticmaalaan sababtoo wax free aan lacag laga doonayn version-ka cusub marba soo baxay la soo degaan way upgrade gareystaan way update gareeyaan marka saas bay hadda jeer advantage-keedu ama imka ay u leedahay active society wax leeyahay bulsho aad iyo aad active u ah bay leedahay oo userska ay haysataa Linux-ku marka loo eego Windows-ka waa active waa dad aad u active oo helpful barashada Linux-ku mar hadda Linux barato waa adoo bartay Unix waa isku mid wax difference oo u dhaxeeya ma jiraan waa same marka la eego community-geeda sanu sheegnay waa dad active community-geeda oo helpful marka tan waxay ka dhigtay inay support-keedii ama in la upgrade gareeyo ama marba support ay yeelato mid degdeg ah ay ka dhigtay disadvantage-keeda waxa kamid ah run ahaantii way ka adagtay Windows-ka qofka Windows-ka bilowgii way ku adagtay inuu Linux isticmaalo waxayna lahayn oo kale automated installation tools ma laha sida Windows oo kale imika Windows installer kan yare click taasina next aad leedahay ma laha waxay leedahay hada manual configuration hardware hada jeer waxay manual bay ku shaqeysaa ama terminal inta soo kiciso aad configuration kaga sameynayso shaashada madow ay Soomaalidu tiraahdo taas oo kale ayaad configuration manual kaga sameynaysaa waxaan filayaa inaad faahfaahin kooban marka hore ka fahanteen sharaxaad guud oo aan ku sameynay Linux waxa ay tahay waynu sii wadi doonaa iyadoo aynu sii dhexgalayno si waxaan u dhexgalayno si ay u shaqeyso Linux gaar ahaan Ubuntu عشر ku xigeentan isku arki doono waxaad kaga tageynaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh